munaasabadan oo ahayd maanta mid aad u ballaaran isla markaasina ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta heer gobol heer degmo odayaal dhaqameedka iyo sidoo kale odayaasha deegaanka xaafadaasi Sheekh Asmaan waxaana munaasabadaasi lagu daafurayay sariirad cusub oo laga hirgeliyay xaafadaasi oo ka soo qayb galay mulkiilaha sariimadaasi Maxamed Maxfuud waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay isla markaasina u mahad celiyay mulkiilaha sariimadaasi dadana way ka fogeyd magaalada oo dadka halkan degan dib buu ku qabay inuu bas iyo baabuur iyo sii raacay qofkii lugeynaya maantana waa kaalka loo keenay waxa weeyaan inta qol ee 60 ka qol ay ka kooban tahay labadiiba iska soo horjeeda midna waxa weeyaan wuxuu leeyahay miiso waxa hilibkii iyo waxa lagu jarjaraya midna waxa weeyaan khudradii baa la dhigayaa dhulka baytilmeygii buu leeyahay isagoo faa'iidadii helayo oo maxay ahayd xaajigu محفوظ أو كسب محمد محفوظ أو شقة قبتي هذا أنا وحاب أصور راعي تدك هالك كنا استوحى أجر قوني ولا يا الله كسادي أنا أمها هاي دول كيس وحى وقليه إلهي أبد كي تدك أنا هو أنا أجيو حبي للوفاء والتياد دوكا هذا هو شقيستي استقوا قولا هي القليه المشاركة اسمها بورما استقوا قولا حبي عربت هاي حبي يقدر هاي وحلا وحي الوفاء ولا إنك صون عظيم ملك محمد محفوظ أحمد هديني واللي ما أنت هو ذلكيس أنت إن لك كانوا وحينو أهان له فائدة ديران ذاتك ذلك وحبوك ودي اللي ليه وذاتك وحسوق شدي وربجوجا إيه مالها كلك يدولك كلك زوج قيستي يا وحك شدا ما أنت مسكر الدني وحيو فائدتها أركتدا يا وحقبتك هل كان لك فائدة سنة sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay mulkiilaha sariimadaasi Maxamed Maxfuud oo isagu sheegay dad badan baa yiraahaa moogta maxaad adduunkaaga u gelisay boorame meelo kale maana gelinka aqoon waxaan boorame waa halkan ku dhashay daadana ku gaaray de meel kale aan ma aqaanin boorame ayaa dalkayga واحد كلو نمهد مغريا دوميو كحيان كقبلك يدق مقالة بورمة حلدبان ماذا قورت ذا كان عصد خياشة وضي ذا دمك ويوينكي waxa ugu dambeyntii halkaas soo afmeeray isla markaasina soo gabagabeeyay maayirka magaalada Boorama iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolkani Awdal Cabdi Nuur Sugaal oo iyagu sheegay sariimadeen wax badan bay fududeynaysaa adeegii bay fududeynaysaa isku socodkii bay fududeynaysaa awal waxa laga yaabaa iyagoo sariimada lagu maqayay inuu roob digi jiray oo magaalada kala xirmi jirtay laakiin maanta hadii la idin keenay albaabka la idin keenay in aan la soo talaabina halkan la camiro anaguna wax alla wixii kale imkaaniyad aad u baahantiina halkan idinku keeno ay reeyay kayn macallin boo maanta wuxuu na baray hadaynu reer Boorama sidii laba maqsin waxaan dhisay jirnay guri weyn oo 5 maqsina oo laba saddex xaasooda kala jiraan waxa uu tababar inoo siiyay kulka koobaad in laba maqsin la dhisan karo saddex maqsin la dhisan karo marka labaad wuxuu wax ka qayb qaatay meelaha waxbarashada waxa xadhiga ka jaray sariimadaasi cusub maayirka magaalada Boorama Mudane Salebaan Xasan Xadi Nuuruddin Cabdullaahi Dugsiye telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV magaalada Boorama